munaasabadan ayaa lagu xusayay aasaaskii ka soo wareegay dugsiga hoose dhexe ee Dalo First School. munaasabadan ayaa sidoo kale xambaarsanayd abaalmarinta ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka heerka koobaad ee teeramka koobaad ee uu qaado dugsiga Dalo First School. munaasabadaasi oo si weyn loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay ardayda dhigata dugsiga Dalo First School galaasyada kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsigaasi, waalidiin iyo marti sharaf lagu soo casumay munaasabadaasi. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Dalo First School Cabdinaasir Xasan Aadan, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen isla markaasina ay ku xusayaan aasaaska dugsiga Dalo First School. wali xafladani laba isku jirtaa waa xaflad aasaaska dugsigeena Dalo iyo talabaad raasano in ardaydii kaalmaha teeramka koowaad gashay inay muxuu abaal marino inkastoo waxa weeye teeramka inta badan aan la qabanin oo ka weyn la qabto insha Allah haddii wada noolaanin way joogeen xafladaasi ay teeramka weyn inoo iman doonto xaflad inta ka ballaaran oo waalid iyo cid walba ay ka soo qayb gasho laakiin haddana waxaa lagu talagalay in iyagana ardaydii dadaalka muujiyay inaan iyagana abaal marino si kuwa ka dambeeya ama ardayda kalena iyaguna u dadaalaan oo dadaalku dhex maro oo waxa weeye arday walba uu isiraado dadaal oo had iyo jeer guusha ama waxa guuldarrada la yidhaahdaa cidna lamay dhalan guushuna cid lamay dhalan guuldarraduna cid lamay dhalanin laakiin sida loo kala dadaalo iyo dadaalka la muujiyo ayay maaragtay ku xidhan tahay. kolay dugsigeena Dalo wuxuu caan ku yahay aqoon iyo waxa weeyaan waxbarasho buu caan ku yahay waxa weeyaan ardayda had iyo jeer marka imtixaanadu soo baxaan shahaadiga ama dugsiyada sare ay galaan runtii waxa weeyaan ardayda Dalo way ka muuqataa ardayda kale dadaalkana cidda leh waxa weeyaan kowka macallimiinta waxaa laba ka waalidiinta oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxa kaliya ee dalkeena aynu ku horumarin karnaa waa aqoon. caalamkana wuxuu ku kala tegay waa aqoonta wadanba wadanka uu ka aqoon badan yahay jiilkiisa ama da'diisu ama ay ka aqoon badan yihiin ayay horumarkana ugaga badan yihiin. geestooda waxa iyaguna dhankooda ka hadlay qaar ka mid macallimiin waxaana ay bogaadiyeen ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka heerka koobaad ee dugsigaasi qaado. waxaynu u dabaaldegaynaa oo aynu la farxaynaa ardaydaasi, waxaynu la dabaaldegaynaa sanad guuradii dugsiga, waxaynu la dabaaldegaynaa dadaalka ay muujiyeen ardaydaasi. dadaala xaaji Cabbaas waa gaadhaabay tidhaahdaa Soomaalidu waana dhaafaa. halabuurnimada iyo kartida ayaa la isku dhaafay had iyo jeeraale. waxaan leeyahay hambalyo ardaydaasi guulaysatay ee ku guulaysatay kaalmaha sare. Cabdiraxmaan Almis oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa isna dhankiisa ka hadlay ahmiyadda ay waxbarashadu ay u leedahay da'yarta, waalidiintana kula dardaarmay inay ka warhayaan ubadkooga marka ay ku jiraan heerka waxbarashada koowaadna ay mar walba gacanta ay ku hayaan.
intii ay socotay munaasabadaasina waxay ardaydu halkaasi ay ku soo bandhigeen bandhig masraxiyeedyo iyo nashiidooyin iyo gabayo ka turjumaya heerarka waxbarasho ay ka bartaan dugsiga Dalo First School halka ardaydii kaalmaha koobaad ka galay galaasyada koobaad ilaa 8aad iyo barbaarinta qaybta caruurta ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan. Xamse Qurbaani, warbaahinta dawladda.